nabadda wadayaal ku soo dhawaada page-kayga Nimco Cumar Xuseen maanta waxa halkay nala fadhiya oo inoo haya qoraa Siciid Maxamuud Gahayr oo inta badan social media qoraayadiisa iyo waayihiisa iyo xaaladihiisa aad ka aragtaan wajigiisuna aanu idinku cusbeen maanta halkan aan wada fadhinaa Hargeysa aanu ka wada caawinayna ku soo dhaw page-kayga Siciid aad baad mahadsan tahay Nimco Cumar Xuseen waana dhawahay waana ku faraxsanahay wareysigan aad maanta iga yeelanayso kulli dadka kuma cusbido de kulli yaqiin la'aan ma jirto laakiin haddana Siciid waa kuma halku ku dhashay ku barbaaray waxna ku bartay waxaan ku dhashay Hargeysa qarnigii hore kadib markii dagaaladu ay dhaceen aniga oo wax yar ah waxaan u qaxay Kama Bokor oo ku taala bariga Itoobiya halkaas aan malcamada iyo iskuulka hoose ka bilaabay waxaan Hargeysa dib ugu soo noqday 1997 iskuulada hoose Hargeysa ka dhigtay Riis duuska sare Maxamed Ali jaamacadda Hargeysa ayaan maamulka iyo maareynta ka bartay sidoo kale markaan dugsiga sare dhameeyay waxaan noqday macallin ka tirsan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo muddo aan ku shaqeynayay sidoo kale waxaan xiliyada ka mid noqday bahda halabuurka Soomaaliland waxyaabaha kale ee qabsan marka laga yimaado waxaan ka mid ahay qoraayada wax ka qora taariikhda iyo suugaanta iyo sayniska iyo waxyaabaha noocaas ah qorayaasha manhajka dugsiga hoose dhexe ee maadada suugaanta Soomaaliland baan ka mid ahay buuga kala gedsan oo aan qorayna waa jirtaa maraan arrimaha bulshada iyo xuquuqda aadamaha u dhaqdhaqaaqaan way jirtaa marka malaha inahaas way ku filayeen in dadka adii aan faahfaahin dheeraada waan gartay de kulay nin waaya badan baa tahayo meelo badan gala laakiin inaad wax qorto goorma ayay kugu dhalatay wax qoristu waxay igu dhalatay markii aan ahaa fasalka afraad ee dugsiga sare 2005 ayaan barnaamijka rayga dadweynaha ee idaacadda Radio Hargeysa geen jirnay maqaalo aan aragtay ku cabirayno markaas joogta ayaa loo soo deyn jiray toddobaad walba sanadka kadib baan isku dayay inaan buug qoro marka ugu dambeyn isku dayga qoraalku uu sii socday waxaana si rasmi ah u anba qaaday oran karo sanadkii 2008 meelaha dambeyn waxaan oran karaa qalankaygu taabagal noqday sanadkii 2008 oo Pakistan aanu joogay inaan waxbarasho cilmiga caafimaadka soo bartay laakiin ay suurtagal weydii ayay ku laalatay aragti ah inaan qoro buugaag kala duwan marka laga tago maqaalada iyo waxa buugaagtan xilliga go'aansaday inaan qorona kan Xaaji Cabdikariim Xuseen Yuusuf baa ka mid ahaa marka waan fogaa way suurtagal weeyay inaan qoro sanad kadib baan Hargeysay markii waxbarashadii suurtagal weeyay Xaaji Cabdikariim baan markaa u tagoon ku leeyahay taariikhda qoro ayaan doonay waliba dhinacaana adeer buu igu beegnaa oo isgareynay oo aabbahay saaxiib ahaayeen marka xaajiga soo hortay ay rag badan ku oran jireen waxbaan ka qorinayo dadku waraysi bixiyaa malaha way ku adkaanaysaa wuxuu intii ragii oo weynaamaya markii dambe wixii uu caalamka ka yiri iyo waraysi hore looga qaaday baan urursaday ugu dambeyn isaguna uu igu raacay inaan buuga qoro waxaan ku dadaalay in daabacadiisii koowaad ay soo baxdo isaga oo nool marka aad buu ugu farxay in isagoo nool taariikhdiisii la qoro wuxuu oran jiray taariikhdii baan nooleyseen waan ku duceynayaa ka walaalkay uu tago wuxuu ku oran jiray markii buuga qoray baad markii buuga qoray ayaa tay uu ku oran jiray marka Xaaji de wuxuu ahaa oday mudan in wax laga qoro taariikh badan uu soo joogay way aragnimo badan lahaa inta badan hal doorka Soomaaliyeed markay geeriyoodaan in baa la xasuusto laakiin waxaan oran karaa wuxuu aalana waafajiyay inaan qorno isaga oo nool macallin baad muddo ahayd fiilkaaguna waa macallinimo macallinku ama fiilka macallinimadu maxay kaga duwan tahay fakaltiyada kale la barto nolosha caadigaana muxuu macallinku ka soo galaa waxaan oran karaa macallinku wuxuu gutaa waajibaad nololeed oo ummadda wada saaran oo ah in daayarta wax la baro waxaan la dagaalamayaa aqoon darrada iyo waxyaabaha noocaas marka macallinku waa waalidka labada bulshada qofka hadii uu aabbihi hooyo leeyahay ku soo xigaya macallinka
ayuu noqonayaa wax la yidhaha waxa kale way nusqaamaan haddii la kala qaato maanta hadduu qofku lacag haysto qof siiyo waxa laga yaabaa inay kala bal soo helaan laakiin aqoonta waxay ku korodhaa dee wax dhigista iyo baritaanka iyo gaadhsiinta ummadda marka macalinimadu dhinac ahaana shaqay ahayd dhinac ahaana dee waajibaad ka nololeed oo qofku intii uu wax tabanba u shaqo tegi lahaa inuu si togan ummaddiisa wax ugu qabto marka waxay ahayd inaan dib wax badan baa waxna la soo barayay oo tacabna soo galay ama jaamacad ama iskuul ama inaan dadkii dib wax ugu celino oo aqoontii dib ugu celino ayun bay noqonaysaa hagaag laba buugu aad u qiimo badan oo xaaji aad u qiimo badan aad ka qortay baa jira samatalis iyo astaantii nabadda kulay taariikhdii iyo waayihii xaaji waraabe ayaad aad ugu soo koobaysaa qoraalka buugga goormaad bilowday ujeeddadaad u qortayna maxay ahayd labada buug mid ka mid ah waxaa la yidhaha samatalis wuxuu xambaarsan yahay taariikh nololeedka iyo talanabeedka allah naxariistay xaaji cabdikariim xuseen yuusuf waxaan bilaabay inaan qoro sanadkii 2008 oon Bakistan ka soo laabtay xaaji cabdikariim annaga waxa laga yaabaa inuu abaal qofeed bay igu lahaa markii Hargeysa laga qaxay 80kii dadkii qaxayeen ka mid ka ahayn meelihii ay joogeen xaaji cabdi baa ku dadka nabadgeliyo ha baxaan marka gobolihii la soo siiyay xaajiga ayaan raacnay mar labaadoo ahayd 2003 anigoo dugsiga sare dhigtana aabbahay baa geeriyooday si gaara buu xaajigu ugu yiri qoyska hal ogaado waxa loo qabto markaas aan ugu abaal celiyo ayaan doonayay tiina waxay noqotay inaan buugan samatalis qoro buugu wuxuu ka soo bilaabmaya dhalashadii xaaji cabdikariim oo ku siman 1905 isagoo 7 habeen jira aabihii la dilay agoonnimuu ku koray adeeradii baa koriyey waaye adagoo colaadeed oo ingiriisku beelaha hubsiiyey oo la isku dilo ayuu xaaji ku koray sheekada ugu cajiibsan ee noloshiisa qof kastoo maqlaabo uu la cajiiba waxa weeye in markuu 17 jir ahaa la diray oo lagu yiri soo dil ninkii aabbaha dilay isaga iyo 3 wiil oo kale la israaciyay meeshii bay tageen way isgaranayaan ku yiraahdeen geel baan doodoonaa ma guurdoon baanna dabeeto iyagoo gurigii jooga ayaa roob soo daay xilliga bacahan iyo jingadaha imay jirin wuxuu keenay hargawaali agab ay roob ka galaan dadka baraaga xidama jirin xoolihii baa roobkii lagu soo daay nimankii baa ku yiri waa xilliga dil lahayn markaasuu ilaahay maskaxdiisa xanuun ku soo dejiyo wuxuu yiri war qoriya xabad ka bixiya ninka daroorinta inoo quuli waayay dilmayno nin baa ku yiri nacsimada waan ka filayn aabbaha waari weeyo mid kale ku yiri war isaga inaga saxsan kuwiina soo dirayna rag ma ahayn jiran rag ma inaan ahayne dhig marka reerkii bay xoolihii la waraabiyeen neef baa loo qolay subaxii buu tago sugu adeer marka hore waxaan u soconay inaan ku dillo laakiin aabahayna dagaal buu ku jiray ilaahay isagana ha u dambi dhaaf adigaana aabba kaa dhiganayaa guriga aan galnay ayaan doonaya bahda inaad ina naga siiso dabeeto aad buu odaygu farxay wuxuu yidhi ina laba jira baa joogta ina laba jira cidna siin maayo ilaa adigaan afti kaa helo reerkiina saan nabad ku gaadhsii inantii wuxuu guursaday 17 sano kadib marka waxay dhimatay berdhowed 2017 iyadoo qudheedu cimri dheer iyo 100 sano ku dhow ay 2017 carruur badanna way u dhashay qoys markii uu dib u noqday odayaashii soo dirayna aad bay ugu farxeen waxay yiraahdeen ilaahay baan odaygaana inagu salidin kale aabahaana mu soo noolaadeen oo ku ducaynay marka xaajigu laga bilaabo markaas nabadgelyo ka shaqeynayay isagoo 35 jir ah ayuu caaqil noqday 1940kii wuxuu la shaqeeyay dawladihii kala duwanaayo Ingiriiska iyo Talyaaniga 6 bilood ka haysay xisbiyadii xornimadoonka ayuu ka mid noqday markii dambana wuxuu ka mid ahaa odayaashii ogaadeen midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliya xilligaana madaxweynayaashii kala duwanaayo Soomaaliya waa la wada shaqeeyay intan dambana ee Soomaaliland xorowdayna wuxuu ka mid ahaa dadka nabadgelyada ka shaqeeya iyo is'oolaynta iyo walaalaynta shantii madaxweyne ee Soomaaliland soo maray inta iyagana
ولا شقيقي marka waxa cabdi wuxuu Soomaaliland ugu suntaanaa in lagu sharfo aabaha nabadda oo dadkan nimanka jooga waxa laga yaabaa nin kasta awgii labaad Sultan Xasan Sultan Cabdilaahi awgii labaad buu la shaqeeyay Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir awgii labaad buu la shaqeeyay marka waxa cabdi waxyaalaha caanka uga cafiska ka mid ah gurigiisa bamba lagu tuuray maroo qaar la xaajiga dawladda noo diidan oo iska sii daayay buu oran jiray inta madaxa lagu dhufto ayuu oran jiray iska sii daaya dadka ama ilkaha laga daadiyo marka buugaas wuxuu ka warramaya taariikhda talaalaadkii xaajiga samatalis baa la yidhaahdaa oo waayihiisii nololeed kan labaad waxa la yidhaahdaa astaantii nabadda xaaji cabdikariim xuseen yuusuf wuxuu geeriyooday 10 May 2019 geeridiisa aad baa looga naxay markaasay nagu dhaaltay talo ah in la ururiyo tacsiyaha kala duwan tiraawaha kala duwan iyo tixaha loo tirinayay geeridiisa aniga iyo Xuseen Cabdi Cali Wadhaani oo markaan ka tirsanay wasaaradda waxbarashada imkana ah xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka Soomaaliland baa ururinay buug markaa wuxuu ka warramay geerida xaaji cabdi iyo aaskiisii iyo sidii looga qayb galay oo markii uu galabnimada geeriyooday waa la aasaya raggii waaweynee soo hadlay Sheekh Cabdilaahi Shaqal Jawcar baa ka mid ahaa uu ku yiri Sheekh Cabdilaahi haddaan kaa horeeyay aaskayga joog haddaan iga horeysana waan joogayaa yiri inala suga marka dad badan baa ka soo qayb galay aaska waa laga naxay geerida tacsiib ay soo direen madaxdii Soomaalida kala duwan ama farmaajo ha ahaado سعيد هذا مصطفى عفتر اسماعيل عمر قيلو سفيركيسا موسى بيحي قرايه kala duwan ba wax qoray xilliga oo ugu muhiimsan yihiin Boobish Caale iyo Yuusuf Garaab Umar Ahmed taajibku waxa weeye xaajigu halabuurna muhiim laakiin waxa geediisa laga tiriyay 100 maanso ayaa laga tiriyay gabayga ugu weyn ee xilliga baroodiiqda loo tiriyay waxa tiriyay abwaanka iyo suxufiga weyn ee la yiraahdo Ali Ahmed Rambi Ali Seyno maasada ugu caansan dadku wada garan karaan waxa tiriyay suxufiga iyo abwaanka Calimaad Jibriil maasada la yiraahdo tiir baa naga baxay tusaale mudna ayuu tiriyay halabuuro badan oo kale ay ka mid yihiin Xasan Taahir Ismaaciil Warsame أبوان أمحل حسن سليمان الحلة بصالح عبد الله حسن قني عبد الرزاق حامد عيديد شيلاني اللهم حسين محمد باشا حسن اسمعنا بكر دبي وكنت شراء أغل كسراء صوماليا اللهم حسين محمد باشا حسن أيام منسوين كاكتشري مركا وحي المجتمع يسوون احترامك أي مطبعيس إلا هذا نزي حاجة كالنتيسي ولا تبي مركز معارض محافظكم بدون ميل أذك يستووا كل ما هي ويش قلت ذا حل قالنا ولا مدحوينها أما قرياش ويشيسوا لوينشرين ما نسلم أرجنا حالة تعجنا وحلا شكوها يا مدورشة وربع لقرية مسمى تحتويه قلت ذاتك يشيسوا لويسانا ما شفت أو حير في لو جاي وقوة بعض كسر على هذا حير كقوي الرب ما قالناش وحلاي مدحوينها قلدان أنا أقول برلمان بقى قلدان أقول حزب بقى ما قالناش مركا كالبا waa baroodiiqdii taariikhdiisa ilaahayna wuxuu nagu guuleeyay inaan soo bandhigno dhamaadkii sanadkii hore Mansoor Hargeysa lagu soo bandhigo dowladuna si weyn ay kulli uga soo qayb gashay waxaad kulli labada buug waayahoogii xaaladooda dadku in badan inay ka dhargeen bay yaan u malaynayaa dadka barahaga bulshada ku xiran ama shakhsiyan Siciid ahaan ku yaqaana ama dhaqdhaqaaqa la socda waxay yiraahdaan Siciid ma siyaasiba ma qoraaba ma abwaanba halkeen ku tirina Siciid halkeen maanta ku tirina waxaan oran karaa siyaasaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha saameynta ku leh nolosha qofka maanta dadana siyaasi ma yahay oo kama hadlayo waxa noocaas ah qariban mas'uulka xilka haya cid alaale cid u joojinaya ma jirto xirfadahayga waxa ka mid ah halabuur iyo qoraa iyo macallin laakiin siyaasaddan aad baan u xiiseeyaa mar baan
galay xisbiga wacid labadii kun iyo 12 markii dambe la isku qabsaday Jamaal Ali Xuseen sharaxniisii la laalayna waan ka baxay markaa kadib xil siyaasadeed oo qabtay xisbi aan ku beeray ma jiro laakiin aragtida siyaasiga ah waan cabiray tusaale ahaan waxa dhacday marka qaarkood mar baa la iskuuliyiin dhawaaba teerkiisii ay dawladda hoose Hargeysa doonaysa maxaradayn ay ka furto oo dib u durugto haddaan maalinta aamusi lahaa damcaas uu hirgalay laakiin waan ka hadalay oo kicin qofna iskuulkayga igama laaluushi karo oo intii imaaday gumaadan ka siciido lacagtan qaado oo iskuulkaaga ka aamu markay joojin waayeen jingadii midmid baa loo qaatay jingadii iskuulkaygii markaan horumaray imaka isagoo waxaan dee arkaa aan sida kuwa kale Sheekh Bashiir waad aragteen faras magaalo ku yaala waxa laga dhigay gabigiisa masaajidka laga dhigay maxarada meelana laga fur laakiin kaygii lagama dhisay maalmood baan oo yeeray oo leeyahay iskuulkii baa dayactir u baahan isla dawladda Hargeysa Charlie Heban u joogna wuxuu iskuulka noo dayactira waana wadaan oo deerkiisii wuxuu u baahnaaba wayna marka kulli siyaasadda waan xiiseeyay inaan marun caadi u galno way noqonaysaa waana wax saameyn ugu leh oo aanan ka aamusi karin waan gartay intaad macalinka ahayd ama wax qoraysay ama aad wax curinaysay waxyaabay kuula yaabka badnaa la kulanta maxaa kamid ah hadaad maanta hal iyo laba iga sheegto de wallahi waxa weeye kolayda curinta iyo qoraalkuba labaduba caqabado waa yeelanayaan de macalinimada kale wax laga yaabo in marka qaar uu qofku private schools ka shaqeeyo laga yaabo meherad qof leeyahay inay noqoto de ugu la yaabka badan waxa kamid ah anigoo macallin wasaaradda waxbarashada ka ah ayaa arday baa jiray Soomaaliland oo dhan wasaaradda tii soo xareystay scholarship waxay ka soo jeedaan lascaanood boorama sayla Hargeysa meel walba ardaydu way soo xareysteen deeqa waxbarasho la siiyay kuwa dawladda 112 ay qaadeen private school waxay sanadkii aan ilaahdo 2020 dadkii markaa la gaaray dadkii la siiyay deeqa waxbarasho ee jaamacadda Hargeysa lagu qoray ayaa haddana lagu yiri كان العقد أنه وزارة كويس شو بحسي ما أنا نقبلنا وقاربان وقاضنا شيركي بورقة قري جامعة دوي شو ديده أرضي بقول إلى ولا سنها لبي لحين بقى أما يسكبحي أما يسكتي واحد من أكو عيال سكول كده كان شيء يقول لك على دقان وين هنا عيد كلوها شو ما قرر أنا معلم وزارة كتير شنبان طياته واحد يوم واحد وزارة مليون كقاطها ومليون كقاطها مستعمر ده وضع هذا markaan la xiriiray laamiga kala duwan jaamacad iyo wasaaradda waxba si jaleed baan qabno waxaan ardayda la isku turtuurin deeqo waxbarashadkiisan imtixaankoodii ha galaan maalinta noocaas haddii nabad ay ku gali waayeen mudaharaad bay ku galayaan waraaqihii scholarship waad ku siiyeen oo kuwan semesterkii hore sidii bay ku galeen markaan hadalay kii labaad wasiirkii baa lafti ka qaatay group WhatsApp uu kula jiray taasoo waxaan ku yiri aniga igu soo dara aniga igu soo dara maalintii dambe wasaaradda horteeda ayaan si jarayd ku qabanay waxaan ardaydaas ma seegi karaan imtixaanka dabeeto Saciid oo waxa la yiri shaqadeen ka joojinaa warqad yar baa la soo qoray maamula qoob wadaniga la socotiin xisbiga wadaniga waxba gaar loo eedeeyay waxa la igu eedeeyay markaa inaan ilu deeqaala musuqay aniga afkaygiina ma ahayn deeqihii waxaan aasiisan ardayda siiya waxa la igu eedeeyay wax nooc iskuul baa la xarashay tilmaan oran eedi adigu way socon weyday wasiirku goostambeedku igu qaniyay marka anigoo xidhan oo leeyahay xukun baa ku dhacay laakiin ambiilay socon ayaa leeyahay shaqadii wasaaradda waxbarashada waa laga saaray ninku dhufayskii uu bariga soo galay uu sidii wali ugu jiray marka waxa weeye madax banaanida qofeed baa la doonayay in milyan lagu muquuniyo marka annagu aniga la waxaan aqliyeystay xil la qaxay oo la barakacayo salaas aad ka dhacayso suuqa daran ay jirtay balagada marka taas ugu weyn kale intii aan waxbarista iyo waday waxaad muddo badan baa Saciidow saldhigyada iyo jeelasha lagu xiray siyaabaha lagu xiray baa kala duwanaadaan dadku jeelasha xaalada iyo waaye kala duwan bay ka sheegaan markii kolba laga wareysanay xaaladahooga muddada hawlaha adigu dee lagu xidhayaa ama saldhigaha lagu xidhaa ama jeel lagu xidho waxyaabihii ugu waaweynaad kala kulanto maxaad iga xusi kartaa maanta wallahi
inta badan horta saldhigyada Somaliland ka jira ma aha kuwa loogu talagalay in aadamo lagu xidho inta ugu waaweyn Hargeysa ku taalan ku sheegaya saldhigga Ibrahim Koodbuur la yiraahdaa waa sariibad uu maayarka Hargeysa Maxamed Xaashi u dhisay in lagu ganacsado marka halkii khudaarta iyo loogu talagalay bagaash ayaa dadkii lagu xidhaya ma laha daaqado suuliyo gudaha ma laha heerkulkoodu wuu sareeyaa saldhigga New Hargeysa waa rugtii kutubta walka waxa lagu akhrisan jiray halka leeyahay dadka lagu xidho waa istoodhadii buugta on hawo qaadasho lahayn on suuli lahayn qaarna waa laba suuliyo caadi ahayo inta la kabasay dusha la isu furay qofku caadi ma jiifsan karo laba jeer baa laga yaabaa in suuliga loo ogolaado dhiigga qofka halka ka yimaado halkaas ayuu gelayaa nal male maxay male waxa laga yaabaa in lagu soo xareeyo 30 qof oo 5 qof cunto loo keeno dawladdu ma oga cuntada dadkan ma garanayso marka anaga waxa laga yaabaa dad badan xaligoodii musaxaha oo tuug baa lagu soo xidhayaa qaar wax soo dilay ayaa la soo xidhayaa laakiin halka lagu xidhayaa ma tahay meel noloshoodii ku habboon ba meesha ku jirta marka saldhigyadu ma aha intooda badan meel aadame loogu talagalay nadaafad darrada iyo ciriiriga iyo kuleylka jeel kooyin baa yimi isagoo meel aadame loogu talagalay laakiin caqabada jira waxa kamid ah booqashadii waxa la yiri 600 qof hal gelin hal soo booqo laga yaabo hooyada ku timi in kuyu dheer bay soo galaysaa soo galay marka assalaamu calaykum waxaan ahayn koolan karaysa ma jirto toddobaadkii hal maalin baa la yiri dadka u kaalaya haddii qofku meesha ku xanuunsado sida isbitaal loo geeyo ayaa adkaanaysa wax jira dad ama dambiya soo gala ama soo gelin haddii doona jeelasha ku waashay oo qofka aan qol la geli karin meel gaar ay noqonayso in lagu xidho waxa ku jira ka curyaanka ay intuu ka soo booday dabaq sare maanta markuu xaq sare korayna arishii qaad buu koolnaya marka isoo qaad buu koolnaya marka ay saldhigyadu noqdaan meel ku habboon noloshii aadamaha iyo dadkan la xidhaya ma yihiin qaar u qalma ama ku xidhanay haddii qofkiiba aanu xilkii alla saarnay xiskiisii u dhigay in la iska sii daayo ay noqonayso kale anaga waxaan loo xidhaana waa cabulino qodobka 12aad ee dastuurka Somaliland baa fasaxaya in qofku aragtiisa uu ku cabir karo ra'yi ama qoraal niman badan oo madaxda dalka jooga iyagoo cabulin iyo diideen ay qori qaateen duurka gaalaan jabhad SNM la yiraahdo noqdeen oo dalka qabsadeen marka anaguna waxaan leenahay haddii weli aan hadlayno waan dhownahay oonan sidoo qori qaadan oo ama sumeeyna xalig iyo cabulin iyo agajulin doona dadkuna xaqooda ha sheegtaan meel kasta ay joogaan yani uga tanaasulin waa la xidhayaa waa la insaayaysaa waa intaas muhiimad noqonaysa markii laga yimaado labada buugeen haatan halkan ku haynay aad ka qortay xaajigii weynaa ma jiraan buugaag kale oo qortay oo maanta ii sheegi karto buugta kale aan qoray waxa kamida buug la yiraahdo culumta maansada oo soo baxay 2012 ka waramaya aqoonta iyo ablaableyta maansada waa kuwii koowaad aan ku bilaabay waa buug xilligaad dadkii suugayahanka ee waaweynaan kala tashaday oo aan ka xusay maanta Allahu naxariistee Abwaan Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye intii soo akhriyay kelmad ka soo yiri aan ka xusay Allahu naxariistee abwaankii weynaa Maxamed Ibrahim Warsame Daraawi oo intii soo akhriyay aqoon ay ugu daray ereyna ka soo yiri waxa soo kale xilligaas soo akhriyay aqoonyahan Jamaal Ali Xuseen أبوان أحمد وجدي أبوان محمود علي وجامع مسمس كاشيك وأبوك الله بعد أن قرينا وها موضوع القرآن كي ساينسك أيام وحكي قري ومعلم شوغان ساينسك كذا دكتور صارنها تفسير كان أنا قوي يربى الحين كان دكتور اللي كان شري برتاي كا مركا واحد بدنا إسلها ذوقاته كوا كلام قري وحكمي أمان رجعتي مسكح دمر رول وأنا كقرأت تحدي تعرف الله نحرسه قبل أبوان الهي لو نشري نمعادن شورني مع قبيضه كيريوتي لابد يكون شيء توانكي نقول كوبا لسنا شو كان هذا قريسي كيسوا حنوشتي ولدي متى ما تدري إنما يبي موحى هي نجوحى هذا بنسكت داري بوجاس أيام كقرأي مثل كلام واحد كلام كقرأي بوجلا وياه يجي حبسها
oon kaga warramo dhibaatooyinkaa kala gejinayo tacadiyada markaa qof kasta dulmi igu sameeyey ama sameeyey jidhku isgeliya markuu arko jidhka ayuu hee iminkana qayb kale ay diyaaroo xadhiigyo ka dambeeyey dee ma garanaysa ku daraya hamaha ka naxaan ama ha ku farxaane ka kale aan qoray waxaa la yidhaha miisaanka maansada dahfurkii maxamed xaashi dhamac gaariye miisaanka maansadu waa aqoon u dahfuray abwaanka weyn maxamed xaashi dhamac gaariye isagaa intuu noolaa damacsanaa inuu buug ka qoro aanu jeclayna inuu isagu qoro laakiin xaqii baa ka soo gaadhay isagoo aan dhammaystir haddii macallinku wax soo saarana caadiyan dee qofka hantidiisa wax ka dhaxla ubadkiisa aqoontana wax ka dhaxla ardayda marka maadaama ardaydaan ka mid ahaa sanadihii ugu dambeeyey noloshiisa weliba gaarka ugu xidhnaaye ma garanaysa waxaan shiri buuggii dhammaystir soo saar ku sale aragtidiisii iyo dee wixii kale ma garanaysa marka buwaagta kale aan qoray wax kaloo jidka kusoo jira mooye inayowgaas baan ka xusi karaa aan raaciye malaa waxaa kaloo jira buwaag aan sifatire ka ahaayo uu ka mid yahay buug laydhaa maan koriye waxaa laga qoray xildhibaankii iyo macallinkii weynaa allaha u naxariistay maxamed barkhad miigane oo macnihiisu ahayd xameel macallin weyn buu ahaa iyo xildhibaan muddo dheer ku soo jiray golaha wakiilada jaamacadda wax ka dhigay markuu geeriyooday ardaydiisii jaamacaddu dooneen inay wax ka qoraan dad bay soo wareysteen waxay la socdeen marka cabdirasaaq maxamed barkhad oo ku nool ingiriiska ardaydii bishii ku ay xulay buugaa waan tifatiray weliba tacabka ugu badana qof ahaantayda ayuu iga gaadhay waxaa la maadiyay inuu isaguna soo baxay 2018 koley maadaama dee qofaf badan baa tahay anugu anigii markii hore sii araartay oo aynu ka gaadhayn dee kan barnaamijkan iyo barnaamijyo kale ugu dambeyn fursad baa ku siinayaa maxaa fariin la wadaagi lahayd bulshada ku daawanaysa bulshada maanta daawanaysa dee waxaan la wadaagi lahaa in qof kastaaba kaalinta nolosha kaga aadan uu ka soo baxo hadduu arday yahay waxbarashadiisa ka soo baxo hadduu macallin yahay hawshiisa ka soo baxo hadduu siyaasi yahay ummadda xil uu hayana uu ummaddaas dhegaysto uu ku maamulo dee cadaalad iyo sinaan hadduu qoraa yahayna uu dee yacni wax ummadda waxtar u yeesho oo togan qoro marka waxaan leeyahay waxaan ku jirnaa kaalmo kala gedisan oo nololeed qof kalooba isku day in kaalintaada aada uga soo baxda si togan oo if iyo aakhiraba waxtar dee kuu yeelata qof ahaantaada iyo cidda kale ay xiriirka la leedahay intaasun baan inuu qof kastaaba kaalintiisa ka soo baxo waa hagaag wuxuu ahaa Siciid Maxamuud Gahayr nin waayo badan leh abwaan ah qoraa ah sidoo kale macallin ah baa maanta marti iigu ahaa page-kayga Nimco Cumar Xuseen halkana ila fadhiyay oo waayihiisii dhanka qoraaga iyo halabuurka iyo waliba dee dhanka siyaasadaba aan ka wareysanayay waa ku mahad celinayaa Siciid sida quruxda badan leh uga soo qayb gashay barnaamijkayga iyo page-kaygana aad qayb igala noqotay maanta kamaraduhu waa Abiib Maxamed Cabdullaahi Askar anigoo Nimco Cumar Xuseen ah idin la socodsiinaysay Hargeysa aan wada joognay Siciid intaynu barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono aniga Siciid nabad geliyo